magaalada Baraawe ee caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay shirka sanadlaha ah ee gudoomiyaasha degmooyinka iyo maamulka gobolka Shabeellada Hoose oo sanadkii labaad lagu qabtay magaalada Baraawe ee caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Shirka gudoomiyaasha degmooyinka iyo maamulka gobolka Shabeellada Hoose ayaa sanadkan loogu hadlay xureynta deegaanada maqan, adeegyada aasaasiga ah ee bulshada sida caafimaadka, waxbarashada iyo adeegyada kale ee aasaasiga bulshada uu ka mid yahay amniga. Kulankan waxaa soo agaasimay oo goobjoog ka ahaa gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellada Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Gabagabada kulankan ugu horeyn waxaa ka hadlay gudoomiyaha maamulka magaalada Baraawe ee caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Dr. Liibaan Abuukar Baafo. shir dhowr bari noo socday oo ku aadanaa shirka gobolka Shabeellaha Hoose ee ka soo qayb galeen degmooyinka oo dhan oo ku qabsoomay caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Baraawe ayaa maxay ahayd ay doorkiisana lahaayeen inuu shirkan dhaco gudoomiyaha gobolka iyo wasaaradda arrimaha gudaha. muhiimadda oo shirkan uu ahaa howlaha la xiriira stabilizationka iyo horumarinta in looga hadlo haddii si gaar ah aan baahiyaha la xiriira ama waxyaabaha wax ka qabadka u baahan sanadkan 2023 aan u xuso maadaama ay dowladnimada ku salaysan tahay ama ay ku fadhiso waxyaabaha loo yaqaan infrastructure-ka ama dhismooyinka oo helo maamulka ama maxay ahayd qaybaha shaqeynaya inay helaan meel ay ku shaqeeyaan. sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ayaa maamulka gobolka Shabeellada Hoose ku bogaadiyay qorshaha sanadlaha ah ee ay ku kulmaan magaalooyinka gobolkan si loo dejiyo istaraatiijiyada adeegyada hor u socodka maamulka gobolka. muhiimadda ujeedka gudoomiyaasha degmooyinka waxay u qabsoomay shirkii hore waxay aga qabsoomay iyo hadda waxay ka dhiman sanadka cusub marka si qurux badan uu soo dhamaaday runtii waxaan u mahadcelinayaa number 1 gudoomiyaha degmada Baraawe oo runtii si qurux badan u soo dhaweeyay tiimkiisa iyo asxaabtiisa gudoomiyaasha degmooyinka oo dhigiisa ah iyo maamulka gobolka iyo wasaaradda oo si qurux badan u soo dhaweeyay. gudoomiye waa mahadsantahay leenahay adiga shacabkaaga. tan kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo si qaas ah gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax oo runtii mar walba u heelan una taagan isku xirka gobolka Shabeellaha Hoose dhan walba haday naqan lahayd arrimaha bulshada iyo haday naqan lahayd wax walba oo u taagan oo kuna xiran maamulkiisa degmooyinka iyo wasaaradda iyo heer madaxweyne. ugu dambeyn gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellada Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa sheegay in qodobadii ka soo baxay shirka sanadkan uu ka mid yahay xureynta deegaanada maqan isagoona sheegay in dhowaan deegaanada gobolkan uu ka bilaabi doono dagaalka dhana al-shabaab. shirkan sidaan horey u sheegnayba waa sanadkii labaad oo xiriir ah oo maamulka gobolka uu soo agaasimayo in degmooyinka gudoomiyaashooda ay hal meel isugu yimaadaan taasoo ay goobjoog ka tahay wasaaradda arrimaha gudaha si la saga wareysto qorshaha siyaasadeed sanadkaas bilaabanayo bulshada loo qabanayo iyo kii la soo dhaafay wixii soo qabsoomay guuleystay iyo wixii aan awoodi kari weynay la rabo in sanadka kale la fuliyo haddii alla idmo. si guud ahaana waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan gudoomiyaasha degmooyinka oo runtii shaqo adag ka haya degmooyinka guulo waaweynna ka gaaray inay dadkooda isku hayaan nabad ku wada noolaadaan adeegyada bulshadana ay runtii la gaarsiiyo rajada dowladdana mar walbaba ay halkeeda ka sii wadaan ayagoo aan ogahay in duruufo adag runtii ay ku shaqeynayaan si guud ahaana laakiin maadaama waajib dowladeed uuna saaran yahay oo runtii mas-uuliyaddan ilaahay noo dhiibay bacdu daalika aan ku matalayno shacabkeennii oo uu nagu soo aaminay madaxweyneheenii dowlad goboleed Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen wasaaraddii arrimaha gudaha iyo dhammaan shacab weyneheenii dhammaantoodba ay runtii nagu soo aamineen. waxaa la rabaa in aan u dhabar adeegno oo aan u shaqeyno oo aan ka daalin inta karaankeena oo ilaahay naga waafajiyay
in dadkeena aan u adeegno baahida ay qabaanna wixii laga qaban kara in laga qabto. intaas markaan ka gudbo shirkan muhiimadda kale uu lahaa waxay ahayd waxaa jiro dalka si guud ahaana howlgalo ayaa ka socda. howlgaladu waad ka horeysaan deegaan ayuu ku bilowday, kadibna gobol ayuu isku bedelay, kadibna state ayuu hadda joogaa waqtigan hadda la marayo. howlgal insha allahu tacaala aan rajeynayno inuu mar dhow ka bilowdo si guud ahaana koonfur galbeed oo uu hormuud noogu yahay madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo loogu magac daray gobonnimo ayaa ka bilaaban doona si guud ahaana gobolkan annaga hadda aan wakiilka ugu nahay dowladda ee shabeellaha hoose, kaasoo la rabo guddoomiye kasta oo degma in kaalintiisa uu ka qaato, bulshadiisa uu diyaariyo, uu wacyigeliyo, u sheego in cid walba maanta ay Soomaaliya garatay inay ayada isxurayso, ayada cadowga iska dulqaado, ayada isu gargaarto, ayada ay ka dhigato deegaankeeda mid amni ah. maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa ah maamulka keliya ah ee maamulka degmooyinka u qabta shir sanadle ah si looga wada tashto adeegyada aasaasiga ah ee bulshada. Ibraahim Maxamed Mayow, telefishinka iyo raadiyaha Dalsan, magaalo xeebeedka Baraawe. si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli MPin-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.